هذا حيث الصوماليين هي second class citizen laga arigu saamaha markii la fiiriyo the modern history of Kenya Soomaalidu waxa weeyaan waa indigenous ama native society weeyaan waa dadkii ugu horeeyay ee dega dhulkan dega weeyaan kulanti wanaagsan Ramadaan Kariim daawade magaciigu waa Axmed Laqayo kuna soo dhawaada qaybtii shanaad taxanaha barnaamijka iyaga Sooyaalka Soomaalida Kenya oo qaybtiisii afraad aan uga soo hadalnay yaa xuroobay yaase laga xuroobay iyadoona aqoon-yahanadii aan ku soo wareysanay ay si qoto dheer uga hadleen intiinii daawatana aan filayo inay si wanaagsan uga bogteen taariikhda qotada dheer ee Soomaalida Kenya leedahay qaybta shanaad ee taxanaha barnaamijka iyaga Sooyaalka Soomaalida hadduu guula saamaxo waxaan uga hadli doonaa wixii ka horeeyay sanadii 1963 ma waxaa jiray dal Kenya la oran jiray mise gumeystii Ingiriiska ayaa hirgeliyay Soomaalidu maqoomiyad deegaan aba mise waa dad marti ku ah Kenya ma aaminsan tahay baaxadda dhul ahaan marka la isku daro wadamada Burundi iyo Rwanda inay ka weyn tahay ismaamulka Wajeer yaa weyn Holland iyo ismaamulka Garissa waa mawduuca guud ee aynu toddobaadkani ama qaybta shanaad uga hadli doono barnaamijka Sooyaalka Soomaalida Kenya hadduu guula saamaxo marka laga hadlayo taariikhda qotada dheer ee dalkani Kenya dadkii ugu horeeyay ee dega xuduudaha uu sameeyay Ingiriiska iminka la isku yiraahdo Kenya waxay ahaayeen Kushitis kana koobnaa Soomaali Boran reer Diinle Gabra iyo Burji kuwaasoo dhammaantood ah xoolo dhaqato dhammaan gobolada ay degaanna waxa lagu qiyaasaa in boqolkiiba 53 Kenya ay degaan taasi waxa ay ku muujinaysaa in Soomaalidu yihiin dadkii ugu horeeyay ee dega dhulka Kenya inta badan qowmiyadaha ku nool Kenya waxay aaminsan yihiin in Soomaalidu tahay dad marti ku ah Kenya balse waxa lagu tilmaamaa dadkaasi inaysan dib u milacsan ama dib u raacin taariikhda qotada dheer ee Kenya marka laga hadlayo juqraafi ahaan gobolka waqooyi bari Kenya waxa uu ahaa gobolkii labaad ee ugu weynaa Kenya inta aan la daadajin nidaamka ismaamulada ama waxa loo yaqaan counties-ka baaxadda dhul ahaan ee ismaamulka Wajeer waxa lagu qiyaasaa inuu ka weyn yahay isku darka wadamada Burundi iyo Rwanda halka ismaamulka Garissa lagu sheego inuu ka weyn yahay wadanka Holland ama Netherland dhammaan taariikhahan aan kor ku soo sheegnay waxa barnaamijka Sooyaalka Soomaalida Kenya u sharaxay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed isla markaana ka faalooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika horta dalkani wuxuu xornimada helay 12 December sanadii 1963 markii uu horeysay taariikhda Kenya oo ay samaysto Kenya cusub ay samaysanto waxa la yaqaan Kenya ma jirin 1963 wixii ka horeeyay Kenya waxa sameeyay Ingiriiska ayaa sameeyay marka shucubtii marka Kenyaanka ahaa ee Kenya lagu magacaabay waxay noqdeen 42 qabiil bay noqdeen 42 qabiil ay noqotay marka taariikhda Kenya la akhrinayo oo history of Kenya la akhrinayo modern history of Kenya dadka ugu horeeyay ee xuduudahan imanka samaysmay oo Ingiriisku sameeyay degay waxay ahaayeen dadka loo yaqaan Kushites waxa weeye waa Soomaalida Boranta reer Diinle Gabra iyo Burjiga nimankan waxa early settlers dadkii soo degay bay kamid ahaayeen dalkan degay marka Soomaalidu markuu indigenous waa native hadii si loo fiiriyo taariikhda marka la fiiriyo waa taariikh in badan oo dadka taariikhda qora ama dad waa taariikh in badan dadka macnaha Kenyaanka aysan ogeyn waxa yartay inay garanaynin inay Soomaalidu native tahay maartay hadda waxay Soomaalidu inay second class citizen laga arigu saamaha markii la fiiriyo the modern history of Kenya Soomaalidu waxa weeyaan waa indigenous ama native society weeyaan waa dadkii ugu horeeyay ee dega dhulkan dega weeyaan magaalooyinka gobolkii Nabdiir oran jiray oo Turkana lagu daray Turkana district lagu daro macnaha yani waxa weeye waa Wajeer Garissa Mandera Sielo Marsabit Moyale iyo Turkana waa boqolkiiba 53 dhulka wadanka Kenya intuu ku fadhiya
boqolkiiba 53 weeyaan magaalada Wajeer waxa weeyaan Burundi iyo Rwanda la isku daray way ka weynta Burundi iyo Rwanda la isku daray ka weynta magaalada Gaarisa la yiraahdo waddanka loo yaqaan Netherland ama Holland way ka weynta Turkana iska dhaafiyo iyo Barcelona ay iska daamaartay xaalada waa subcontinent maartay marka dhulka inta la eg waxa dega dad reer guuraa ah oo reer miyi ah oo dhaqankooda isu dhow yahay oo anigu marka ayaan qayb ka ahayn constitutionka xilliga la qoray ee constitutionka Lancaster House lagu qoray aan runta ka qayb qaadanay ayagoo marka rajeynayay in Ingiriisku macna yani si gooni ayaga ula macaamili doono xornimo gooni u siin doono markii xorriyadda la qaatay waxa prime minister noqday Mzee Jomo Kenyatta oo ah yani ninka talada hayo Uhuru Kenyatta abihi kadibna wuxuu noqday yani madaxweynihii ugu horreeyay dalka uu yeesho waxa madaxweyne ku noqday ninka oran jiray Odinga Jaramogi Odinga ayaa madaxweyne noqday inkastoo 1966 la xiray kadibna nin loo oran jiray Joseph Murumbi ayaa noqday kadibna Daniel Moi ayaa noqday markaas Soomaaliya markii dhulka deganaa waxay ahayd dad hadday kacaan shucub hadday kacdo oo yidhaahdo xorriyad baan rabnaa ama xuquuq baan naga maqan yidhahdaa laba mid weeyaan in yani dadka ay la dagaalamayaan ay la heshiiyaan oo xuquuq mucayan ay ka qaataan ama in yani halgankooda iska socday si Falastiin oo kale labadaba ay dhaceen Soomaalida markay kacday waa yani shuftu way bilaabatay shuftu ay ku magacaabaan ayaa dalkan looga yaqaanaa militariga cusbaa ee dalka uu yeeshay dalka Kenya uu yeeshay wuxuu la tacaalay nimankii kacdoonka sameynayay tacdiyaad fara badan baa dhacay waxyaabaha ugu daran ee dhacay waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaan Indemnity Act Cap 44 law of Kenya baarlamaanka mooshin la keenay in yani waxa loo yaqaan Indemnity Act la baasmariyo oo ah in ninka yani ninka booliiska ama militariga ah ama AB-ga ah ama GSU-ga ah oo marka yani gobolka emergency law ayaa lagu soo rogay emergency law markii gobol lagu rogo macnaha waxa dastuurka ma shaqeynaayo dastuurka waa la laalayaa marka waxa socdo maartay militariga waxay sameeyaan wax kasta marka militariga ay sameeyaan sharciga ma qabanayo marka emergency law lagu soo rogay 63 waxa la qaaday 1997 la qaaday 1997 ayaa la qaaday macnaha waxa gobolka waxa saaran emergency law asaaran emergency macnaha dastuurka ma shaqeynayo dastuur yani waxa way ciidamada ammaanku sharciga ma qabanayo wax tacadiyad kasta ay geystaan hadday xasuuq geystaan hadday yani hanti gubaan hadday celal sumeeyaan hadday gabdho kufsadaan ama haween ay kufsadaan haddii dad dhalinyaro ay laayaan haddii iskuulo gubaan hadday isbitaallo gubaan sharciga ma qabanayo taasaa marka ku dhacday dadka Soomaaliyeed daradaas ku dhacday maartay xuquuq mucayan oo heleen habeela teemin jiray xisbiga baarlamaanka waxa soo galay nin loo jiray Aadan Cali Lord nin loo jiray soo galay muddo hayay kadib waa dhintay Allah naxariista waxa marka yani haddana 6 NFD member of parliament uu noqday Cabdirashiid Khaliif oo la dhashay Axmed Khaliif ka dhiman jiray Allah raxmade oo diyaaradda ku dhimanaya wasiirka ahaa ayaa wuxuu noqday yani ninkii ugu horeeyay gobolka u matala yani baarlamaanka matala noqday xisbi loo oran jiray NPP National yani Northern People Progressive Party ayaa asaasmay oo Cabdirashiid Khaliif nin loo oran jiray oo markaa baarlamaanka ku jiray oo ka noqday wuxuu ka noqday yani treasurer oo ka noqday secretary general waxaa noqday ninkii oday Soomaaliyeed runtii aad u qiimo badan aad u sharaf badan oo la yiraahdo Deeqo Macalin Sambul hadda imanka wuxuu ku nool yahay magaalada Gaarisa oday Soomaaliyeed aad u qiimo badan runtii taariikhda gobolkan wax badan ka yaqaan asarkiisa waa la xiray 63 baa la xiray waxaa la soo daayay 67 ayaa la soo daayay markii la soo daayay Mzee Jomo Kenyatta wuxuu reebay markii uu ka dhigay nominate MP inuu ka dhigo dabcan wuu cararay marka isaga goostay Soomaaliya galay marka dambana jabhadda NFD oo madax ka noqon maqlay marka la kuwan taariikh badan hayo gobolka taariikh badan ka hayo taxadiyad fara badan dhacday marka dawladii marka cusbeed ee Kenya ka curatay waxay marka go'aansatay marka dalka inay midayso oo habay dalku uu kala gooyay
madaxweyne Jomo Kenyatta wuxuu ku dadaalay in yani kacdoonkaas marka yani uu dejiyo oo xoog u sheegto si marka uu damiyo kacdoonkaas uu damiyo goboladaasna ay ka mid noqdaan marka ka soo bilaabo marka ilaa 67 kacdoonka waa u socday gobolka wax horumar ma uusan helin waxay loo gobol yani dagaal ay aminka ay ka ogan yihiin wayaan oo emergency loo saaran yahay marka waad garan kartaa maartay wax bay yaraatay yani horumar oo marka meeshii gali kara inay jirin dadka noloshoodii baa si adkaatay يعني قار waxay dhaatay noloshii macna noloshii Ingiriiska ayaa ka fiicnaa noloshii maanta imankaan ku nool nahay barakac fara badan baa dhacay qaxooti fara badan dhacday marka laakiin madaxweynuhu wuxuu ku dadaalay dalka inuusan kala go'in ku dadaalay oo dalka uu mideeyo يعني wax kasta ku qaataana wasi يعني wada kastana u mara dalka soo mideyn lahaa dalka uu soo go'ay lahayn maartay uu ku dadaalay idaha in 67 taariikhda markay ahayd ayaa xalas waxa loo yaqaan Arusha Accord Arusha Accord waxa lagu soo afmeeray oo lagu soo afjaray dagaaladii marka yani kacdoonkii Soomaalida ay waday Booranta ay waday muslimiinta ahaa ama dadkii reemiga ay wadeen ayaa lagu soo afmeeray dawladda Kenya kadib horumar badan kama gobolka ma dhicin waxa la filayay marka hadii dagaalada ay dhamaadeen in iskuulo fara badan la furo in yani dhaqaatiir fara badan macna yani isbitaal fara badan la furo in telecommunication macna la horumariyo in jidad la helo in macna yani dalku marka uu horumar noqdo maadaama dagaaladii ay iska dhamaadeen maartay laakiin meel lagu heshiiyo dagaalku wali ku dhamaadeen waa dagaal Arusha Accord baa jiray maartay guud ahaan qaybtii shanaad taxanaha barnaamijka iyaga sooyaalka Soomaalida Kenya oo aan qaybtan uga soo hadalnay Soomaalidu inay yihiin dadkii ugu horeeyay ee dega Kenya waa nagaynta Axmed Laqaye ayaa idin soo saaray idila socodsiinayay tan intaynu hawada dib ugu kulmi doono nabadiino